Asalaamu calaykum. Waxaa jira waddo highway cusub oo ku taala Bakistaan, waddo tareen cusub oo ku taala Kazakhstan, deked dhawaan laga furay Sri Lanka, iyo sidoo kale buundo laga dhisay miyiga waddanka Laos. Waxa xiisaha leh ayaa ah in waxa aan ka soo sheegnay oo dhan qayb ka yihiin mashruuc hal dal oo keliya, ka oo ka kooban 3 qaaradood, taabanayana 60% dadka dunida ku nool. Haddii aad isku xirtid dhibcahan, ma adka inaad soo saarto dalka uu yahay. Waa Shiinaha. Kani waa mashruuca Belt and Road, mashruuca wadooyinka, mashruuca ugu muhiimsan ee dhismaha taariikhda casriga ah, taa oo loogu talagalay inay dib u soo celiso ganacsiga caalamiga ah. Waana sida ay rabto dowladda Shiinaha si ay u noqoto awoodda ugu sarreysa caalamka. Saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa mashruucan Soomaaliya, maadaama ay leedahay xeebo aad u dheer. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Haddii aad ku cusub tahay halkan, ha ka tagin adigoon taaban badhanka guduudan ee subscribe si aad noogu soo biirto. Waa 2013kii, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa khudbo ka jeedinaya Kazakhstan. Waxa uu soo hadal qaaday waddadii qadiimka ahayd, xiriir wadooyinka ah, shabakadaha ganacsiga ee faafiya badeecadaha, fikradaha iyo dhaqanka. Guud ahaan Yurub, Bariga Dhexe iyo Shiinaha 200 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waa inaan qaadanno hab cusub si aan si wadajir ah u dhisno suunka dhaqaale ee waddada xiriirka. Sida waxaa yidhi madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Hal bil kadib, madaxweyne Xi waxa uu joogaa Indonesia, wuxuuna khudbad u jeedinayay ku yidhi labada dhinac waa inay isla shaqeeyaan si ay u dhisaan waddada cusub oo marta badaha. Labadan jumladood waxay ahaayeen markii ugu horreysay ee la soo jeediyo mashruuca BRI ama Belt and Road Initiative ee dhaxalgalka ah. Mashruucan waxaa ku baxaya dhowr trilyan oo dollar. Waa qorshe laba afla ah. Waxaa jira suunka dhaqaale ee 6 waddo oo dhulka hoostiisa ah, kuwa oo badeecadaha soo geliya kana bixiya gudaha iyo dibadda Shiinaha. Waxaa ka mid ah kan isku xira Shiinaha iyo London, dhuumaha gaaska ka imaada badda Caspian ilaa Shiinaha, iyo shabakadaha tareenada xawaaraha dheereeya ee koonfur bari Aasiya. Waxaa jira waddo badeed, silsilado dekada ah oo ka soo bilaabanaya koonfurta badda Shiinaha ilaa iyo Afrika, taa oo laga gudbinayo ganacsiga ka imaada Shiinaha iyo kan ku socda. Mashruuca waddada suunka waxaa sidoo kale ku jira saliidda, shidaalka, beeraha, warshadaha, tamarta, dhirta, iyo shabakadda fiber optics. Waxaan oo dhan waxaa loo sameeyay in adduunku u sahlanaato inay la ganacsadaan Shiinaha. Ilaa iyo hadda waxaa saxiixay mashruucan 60 dal. Nambarka waddamada waa ay sii badanayaan maadaama Shiinuhu ku dhiirigelinayo in qof walba dan ugu jirto. Tusaale ahaan, waxaa u qaadataa mashruuca dekadda laga furay Bakistaan, sida waddamo badan oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Aasiya. Dhaqaalaha Bakistaan waa mid fadhiid ah, corruption-kuna ku badan yahay, waxayna waayeen wax maalgashada. Ilaa Shiinuhu imaaday 2001, Shiinaha waxay Bakistaan u soo bandhigtay dhismaha magaalo yar oo laga kalluumaysto oo la yiraahdo Gurdwar. Sanadii la soo dhaafay waxay noqotay lacagta lagu bixiyay 62 bilyan oo dollar. Waa meesha suunka dhaqaaluhu uu kula kulmo waddada xiriirka badda. Waxaynu u egtahay in labada waddan ka wada faa'iidi doonaan. Bakistaan dhaqaalaheedu waxa uu gaaray meeshii ugu badnaa 8 sano kadib. Gacanta kale, Shiinaha waxay adkeysay waddo kale oo badeecadaha iyo shidaalka ka keenaya Bariga Dhexe. Mashruucyadan oo kale waxay kor u qaadaan dhaqaalaha shirkadaha dhismaha Shiinaha laga leeyahay. Waxay 7 ka mid ah ku jiraan 10 shirkado dhisme ee ugu fiican dunida. Sidoo kale, shaqaalaha Shiineeska ayaa ka shaqeeya meelaha mashruucyadan ka socdaan, sida Bakistaan oo ay ka shaqeynayaan highway cusub iyo waddo tareen oo laga sameynayo Serbia. Maalgelinta Shiinaha waa kan ugu fudud. Tusaale ahaan, maalgelinta galbeedka fuliyo waxaa ku xiran shuruudo adag, sida inaad ka dhowrsan tahay musuqa iyo in dalkaagu ka jiro xasilooni siyaasadeed. Laakiin Shiinaha waxay balaayiin dollar ku bixiyaan mashruucyo mana xiraan shuruudo adag. Shiinaha waxay heshiis la gashay waddamo madax bannaan, kuwa militariga ka taliyo, iyo kuwo ka mid ah kuwa ugu musuqmaasuqa badan. Waxay sidoo kale ku xiran yihiin Ukraine, Afghanistan, Yemen, Iraq, kuwaasoo dhammaantood dagaallo sokeeye ka jiraan. Maadaama Shiinuhu lacaga badan deeminayo waddamo aan la isku halayn karin, khubarada dhaqaalaha waxay ku tilmaameen mashruuc halis ah. Waayo marka uu dhammaado waqtiga deynta, waxaa waddamada ku waajiba inay bixiyaan deynta. Laakiin markuu jiro musuqmaasuq iyo dagaallo sokeeye, way adag tahay in la bixiyo. Warbixin mar dhow la soo saaray ayaa sheegaysa in waddamada ay Shiinuhu deynta siiso ay yihiin
kuwa u nugul, waxaana ku jira 8 waddan oo ay khatar badan ka jirto, macquulna aysan ahayn inay bixiyaan deymaha. sidaa darteed Shiinaha waxay lacagta ku bedelataa dekedaha. tusaale ahaan, Sri Lanka waxaa 1.5 bilyan oo dollar ku leh Shiinaha. sanadii 2017 ayay bixin waayeen deynta taa oo beddelkeedu waxay la wareegtay deked ay maamuli doonto 99 sano ee soo socota. sida oo kale Shiinaha waxay maamushaa deked ku taala meel istiraatiiji ah oo ay leedahay Pakistan. mid la mid ah taa ayaa ka dhici doonta Myanmar. waxay mar dhow Shiinaha ka furteen xarun ciidan Djibouti. waxaan oo dhan waxay calaamad u yihiin aragtida silsiladda lu'lu'a oo afka Ingiriisiga lagu yiraahdo String of Pearls Theory. waxaase la filayaa in China ay ku yeelan doonto Indian Ocean saldhigyo badda ah taa oo u sahli doonta inay gaaraan dhammaan gobolka. ilaa iyo hadda waxay gacanta ku dhigaysaa meelo badan oo muhiim ah. Shiinaha ayaa rabta inay tartanka kaga guulaysato Mareykanka, ka oo awoodda caalamka kaligiis iska haystay 10 sano ee la soo dhaafay. mashruuca Belt and Road waa wadada ay Shiinaha ku noqon lahayd hogaamiyaha koonkan. haddaba dadka Soomaalida ah ma ka fikirayaan sanadan oo ah 2019 in dunida oo dhan indhaha ku hayso bariga Afrika iyo xeebahooda, iyo sidoo kale mashruucan 3 qaarad isku xiri doona taa oo Soomaaliya ka dhigi doonta marin istiraatiiji ah? mise weli waxaan ka dhamaan la'nahay in xilalka dawliga aan isku haysano, welina aan ku mashquulsannahay in aan u sii kala go'no gobollo yaryar? Shiinaha iyo Soomaalida waa laba bulsho oo kala tagay. kuwa ayaa ku fikiraya inay noqdaan hogaamiyayaasha koonkan, kuwa kalena waxa ay ku fikirayaan si uu hogaamiye u noqdo in uu gobolkiisa koosto. intaas ayaan jeclahay inaan maanta ku ekeeyo mowduuceena maanta. Assalaamu calaykum.